Markii la gaaray habeenka mugdigiisa, waxaa soo baxay Shaydaan si uu ula wareego boqortooyada una u qaato xukunka. Boqoradda sidee bay isaga difaaci doontaa? Waxaad kaga bagan doontaan sheekadeenna. Xilligu waa Masartii hore. Boqorku wuxuu u lahaa 2 gabdhood. Aad ayayna u jeclaayeen. Magacooduna wuxuu kala ahaa Shariifo iyo Caalimo. Gabdhaha yaryar waxay waqtiga ku qaadan jireen daawashada xidigaha, gaar ahaan meeraha Jupiter. Waxayna ahaayeen kuwo aad u faraxsan. Labada gabdhood mid yar waxay samayn jirtay wax walba ay rabto, mana mid laga kontaroolo waxa ay samaynayso, balse halka gabadha weyn wax walba oo ay samaynayso waxa kontarooli jiray macallimadeeda. Waxayna bari jirtay xirfadaha kala duwan, waxayna ahayd mid aad ugu dhimirinin ilaa ay ka nacaan macallimada in ay wax barto. Macallimadana waxay u diri jirtay shaqo walba shaqada ay ka sii adag tahay, maadaama ay ahaayeen kuwo amar diido ku sameeyo. ilaa laga soo gaaray dhimashada waalidkood. Waxaana imaaday maalintii Shariifo taashka la saari lahaa oo ay noqon lahayd boqorad. Shariifo ayaa soo baxday, waxayna raadinaysay suuqa inay ka hesho lu'lu'ooyin qaali ah si ay uga dhigato taajkeeda, ilaa ay ka aragtay luul aad u ifaya, waxaana gadaya oday. Markaas ayay odaygu imaaday, waxayna ku dhahday waa inaad iga gadaa luulka kuu saaran madaxaada. Wuxuu ugu jawaabay ma awoodo inaan kaa gado, balse boqoradda ayaa ku dhahday waxaan ahay boqoradda, mana awoodo inuu qof iga diido amarkayga. Waxay ku dalbatay ciidankeeda si ay uga soo qaadaan luulka si xoog ah. Markii ay u soo dhawaadeen ayaa wuxuu ku dhahay ma dhici karta inaad iga qaado luulkayga. Haddii aad qaadato luulkan waxaa ku jira sixir, wuxuuna kuu bedeli doonaa shaydaamad. Shariifo ma ay dhageysanin odayga warkiisa, balse sidaa beddelkeed waxay u soo dalabtay ciidankeeda si ay uga qaataan luulkiisa. Waxaa la gaaray maalintii caleemasaarka. Markii isku diyaarisay caleemasaarka ayaa waxaa imaaday duufaan aad u badan. Kadib boqoradda ayaa xanaaqday, waxayna soo baxsatay seefteeda si ay uga hortagto walaasheed oo adeegsanaysay sixirka madow si ay uga dhiisho caleemasaarkeeda. Balse walaasheed ayaa u sheegtay inay tahay Shaydaanka oo inay ku jirto walaasheed jirkeeda. Waxayna ku dhahday haddii aad dhageysan lahayd warkeyga sidaan may dhici lahayn. Waxaana caddaatay in walaasheed markay u soo qaadaysay taajka ay taabatay luulkii oo inuu isku bedelay sixirka. Kadib wuxuu saameeyay jirkeeda oo dhan, waxayna u bedelmatay Shaydaan. Markii ay isku bedeshay Shaydaanka, waxa ay bilowday inay samaysato ciidan aad ay leedahay oo ka koobnaa dadkii dhintay si ay uga hortagto ciidanka walaasheed. Walaasheed ayaa xanaaqday, waxayna go'aansatay inay weerarto, balse sixirkii ayaa difaacay, dhulka ayayna ku dhacday. Nasiib wanaag boqoradda ma ayna dhiman. Markii ay soo kacday waxay aragtay iyadoo dhex hurdo kuush yar. Markii ay ka soo dhex baxday ay aragtay boqortooyadeedii oo horteeda ku baaba'ayso, waxayna isku bedeshay dambas. Waxayna dhahday boqortooyadeedii sidaas ayay ku dhamaatay. Cod ayaa gadaasheeda uga yeeray, waxaana ku dhahay daraadda ayay ku dhacday. Waxay ku dhahday waxaan ahay boqoradda, sidaas inaad ila hadashidna waxaad ku mutaysan kartaa ciqaab. balse waxay isku sheegtay islaantii, waxayna ku dhahday waxaan ahay saaxirad meeshan degan. Markii aan ku arkay sixirka adigu ku burburinayo waan ku soo qaaday, waxaana ku dulkeensaday gurigeyga si aan adigu kuu badbaadiyo oon xaaladaada u ogaado. Kaagama baahna inaad ii mahad celiso, balse waa inaad fiirisaa wixii aad walaasha ku samaysay iyo boqortooyadaada, waxaana sababay kibirkaagii iyo isla weyninkaaga. Taasi waxaa kuu sii dheer awoodda dayaxa, wayna ku burburin doontaa adiga iyo walaasha haddii aadan ka hortagin oodan wanaajinin qaladaadkii aad soo gashay. Dib dambe looma arki doono boqortooyadaada, walaasha iyo adigaba. Aad ayaan uga xumahay, maana moodaynin in madax adeegayga uu burburin doono boqortooyadayda iyo walaashayda. Ma jirtaa waddo aan ku sixi karo qaladaadkayga oo aan ku soo ceshan karo walaasha iyo boqortooyadayda, ayay dhahday boqoraddii. Islaantii ayaa ugu jawaabtay way jirtaa, balse waa inaad dhamaysaa ood samaysataa baalashaada. waxaadna baalashaas ka samaysan kartaa shimbiraha waaweyn ee ku nool buuraha dushooda. Baalashaas ayaana kuu soo celin doona boqortooyadaada, waayo baalasha waxaa ku duugan awooddii aad uga hortagi lahayd Shaydaanka. Maadaama ay ahayd boqorad, waxaa ku adkaa aruurinta baalasha. Way daashay, wayna seexatay. Kadib waxay riyo ku aragtay shacabkeeda iyo walaasheed oo uu gacanta ku hayo Shaydaanka, uuna ula dhaqmayay si aad u xun, waxa uuna ku hayay gumaysi badan. Kadib boqoradda ayaa ka soo kacday hurdadeedii, waxaana la gaaray xilligaas subaxdii, taasoo ka dhigan waqtiga ay haysato inuu aad ugu yaraa. Kadib waxa ay ku laabatay ururinta baalasheedii,
Markii ay dhamaysay aruurinta baalada waxa ay bilowday inay samaysato garbaha ay kaga hortagi lahayd shaydaanka. Laakiin si kastoo ay u dadaasho, baalasha ma ayna toli karin kaligeed maadaama uu waqtigu ku yaraa. Waxay aragtay jiirar socdo, kadib waxay u ballan qaaday inay siin doonto cunto haddii ay la dhameeyaan samaynta baalasha. Waxa ay siisay cuntadii, jiirarka ayaana bilaabay inay la sameeyaan baalasha oo ay la tolaan. Waxayna ku qaadatay waqti dhaqso ah si ay u sameeyaan. Kadib waxay u keentay baalashii islaantii. Kadib maamadii saaxiradeed waxay u sheegtay si ay walaasheed u soo badbaadisay in looga baahan yahay jawharadii ay ka soo dhici jirtay ninkii duqa ahaa. Shariifa ayaa u mahadcelisay, waxa ayna u sheegtay inay abaalkeeda guri karin. Kadib waxa ay xiratay baalasheedii, waxa ayna dul tustay qorraxda. Waxayna imaaday ahraamtii oo ah halka walaasheed ay ku dhex jirto. Sidaas oo tahay mayna awoodin inay furto albaabka, waayo shaydaankii ayaa awoodiisa aad u adkeed. Waxayna awoodi weysay in ay ka gudubto albaabka. Albaabka ayaana xirnaa, waxaana ku xirnaa xujo. Waxaana looga baahnaa inay xujada surto si ay uga marto albaabka. Markii ay gaari weysay wax natiijo ah oo ay furi weysay xujada, ayaa boqoradii ayay xanaaqday. Kadib waxay soo xasuusatay taladii islaantii, wayna isdejisay. Waxayna bilowday inay dib u fikirto. Kadib waxa ay bilowday inay u fiiriso sawiradii ku sawirnaa albaabka si ay uga hesho wax jawaab ah. Waxa ayna fiirisay korkeeda, kadib waxa ay aragtay aabaheed oo ku sawiran albaabka dushiisa. Waxa ayna kasoo duldheehatay xidigihii yaraantoodii ay fiirin jireen. Waxayna ogaatay jawaabtu inay tahay xidiga magaciisu yahay Orlan. Jawaabtu waxa ay noqotay mid sax ah. Boqoradii ayaana ku guuleysatay inay furto xujadii, waxaana ku soo duldhacday calaamadii ay ku sawirneed isha. Albaabka ayaa furmay. Inkastoo aan ogeyn waxa laga jeedo calaamadda, balse waxay ku sii qaadatay jeebkeeda, waxayna ka gashay albaabka. Kadib ayay bilowday inay orado si ay ula kulanto walaasheed, balse waxa ay aragtay iyadoo walaasheed oo daalan, waxaana ka muuqday daal iyo xanuun aad u tiro badan. Boqoradii ayaa bilowday inay si gaatin ah uga siibto jawharadii, balse waxa ku soo kacday walaasheed. Gacanta ayayna ka qabatay, waxayna ugu wacday ciidankeedii. Markii ay ciidamadii u soo dhawaadeen xaggeeda, ayna u soo jiraan tiraabo aad u yar, ayaa boqoradu waxa ay isticmaashay awoodeedii, waxayna ka guuleysatay ciidamadii. Kadib waxay u soo noqotay walaasheed si ay uga qaado jawharadda. Markii ay ku dhawaatay inay ka qaado jawharadeeda, ayaa walaasheed iska difaacday, waxayna u adeegsatay awoodeeda. Kadib jawharaddii ayay ka soo bixisay madaxeeda, waa ayna laqday. Sidaas la mid ah, dayxii ayaa dhamaystirmay, waxaana la gaaray waqtigii uu shaydaanka guuleysan lahaa. Aad ayay u farxday boqorada walaasheed, waxayna bilowday inay ka baqsiiso dadka si ay u baabi'iso una qaadato deegaankooda. Balse boqoradii ayaa ogolaan weysay arrinkaas. Waxa ayna ku fikirtay si ay boqortooyadeedii ku badbaadsan lahayd, ayna u soo ceshan lahayd walaasheed oo uga soo ceshan lahayd shaydaanka gacantiisa. Waxa ay bilowday inay walaasheed si hoose ula hadasho si ay u dhimirsato, laakiin walaasheed ayaa ku dalbatay ciidankeedii si ay boqorada u soo qabtaan. Laakiin boqoradii ayaa iska dhicisay ciidankii. Kadib boqoradii ayaa soo aaday dhanka walaasheed, waxa ayna gelisay laabta. Waxay ku dhahday iga tag, kuma rabo inaan kula joogo. Balse boqoradii ayaa ku dhahday waxaa tahay halka qof ay ka haray reerkeyga, boqortooyadeedana ha baabi'inin. Waan ogahay inaan dhibaato badan kuu geystay, balse anigu waxaan soo bartay cashar lama ilaawaan ah. Waxaana ogaaday qaladkeyga, waxaana u soo maray dhibaato badan si aan adigu kuu soo badbaadiyo oona u soo ceshano boqortooyadeena. Iyo ka aqli badan shaydaanka, balse isku day inaad u turto reerkaaga iyo boqortooyadaada. Markii ay dhamaysatay boqoradii hadalkeeda, balse walaasheed waxaas waxba way ka tari waayeen, waayo waxa ku jiro sixirkii shaydaanka. Waxayna bilowday inay walaasheed dhulka ku kala tuurto, laakiin markii ay dhulka ku dhacday waxa soo baxday ishii. Kadib waxa ay ku iftiintay boqorada walaasheed, waxaana ka dulbaxay shaydaankii ku jiray. Boqoradii ayaa ka faa'iideysatay fursadaas, waxayna soo bixisay baalasheedii baal ka mid ah, waxayna ku tuurtay shaydaankii. Waxay ku dhacday luulkiisii, luulkii ayaa kala jabay. Sidaas ayayna ku dhamaatay shaydaanka sheekadiisa. Waxaana walaasheed u soo laabatay miirkeedii, waxayna bilaabeen inay ku noolaadaan boqortooyadeedii, waxaana dib ugu soo noqotay noloshiisa dabiici ah. Jawharadii kala jabkeedina waxaa ka soo dhexbaxay boqorada awowgeeda, waxayna bilaabeen inay salaamaan. Salaan kadib waxa ay weydiiyeen waxa uu uga soo dhexbaxay
jawharada shaydaanka ruuxdiisa. Waxa uuna u sheegay balse asaga ayaa u sheegay in shaydaanka ay tahay ruuxdiisa. Waxa uuna ugu talagalsanaa in uu baro boqorada Cashir inta aanan loo caleemo saarin boqortooyada dalkeeda, si ay ugu dhimriso shacabkeeda ayna u noqoto gabar daacad u ah boqortooyadeeda. Waxa uuna u sheegay inuu ka xumaaday madax adeegeedii iyo sidii ay ayada kaligeed war isaga maqli jirtay oo ayna u qadarin jirin dalka oo dhan. Waxa uuna u sheegay in saddexdii qofood oo ay la kulantay ay ahaayeen ruuxdiisa, ayna ahayn dad kale. Markii ay ka dhageysteen warkoodii ayaa boqoradii waxa ay ka cudur daaratay awowgeed. Waxa uuna u sheegay inay hadda Cashir baratay laguna aamini karo boqortooyadooda. Waxay awowgeed ka ballan qaaday inay shacabkeeda si qurux badan ula dhaqmi doonto, ayna ka talin doonto nabadooda iyo baraarahooda. Sidoo kale waxa ay ka ballan qaaday inay ilaalin doonto walaasheed ka yar, maadaama ay tahay gabadha ka hartay reerka boqortooyada. Waxayna sheegtay inay si fiican ula dhaqmi doonto dadka kale, ayadoona u fiirin doonin dabaqadooda ama lacagta ay haystaan. Shacabkeedii ayaa aad ugu farxay isbeddelka cusub ee ku imaaday boqoradoodii. Sheekadeena halkaas ayay ku dhamaatay.